wasiir ku-xigeenka wasaaradda xanaanada xoolaha Soomaaliland agaasimaha guud ee wasaaradda diinta iyo waqaafta mas'uuliyiinta gobolka iyo degmada Berbera iyo sidoo kale maamulka dekedda Berbera iyo suduwayaasha ka howlgala magaalada Berbera ayaa maanta shir jaraa'id oo ay si wada jir ugu qabteen xarunta gobolka saaxil ee Berbera waxa ay si isku mid ah u soo dhaweeyeen saldhigga military ay xukuumadda Soomaaliland dawladda Imaaraadka Carabta ka siisay magaalada Berbera iyagoo si weyn ugu hambaliyay madaxweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliland iyo golayaasha qaranka ee ansixiyay waxaana hadaladoodii ka mid ahaa inaga ku hadlayna afka mas'uuliyadda aynu qarankan u hayno inaynu si buuxda u taageerno saldhigga magaalada Berbera laga siinay ciidamada Imaaraadka iyo horumarka guud ahaan gobolka ka socda haday deked tahay haday airport tahay iyo haday horumar kale tahay gobolka ka socda kulli waxa aad iyo aad u rajaynaynaa in noqon doonto horumar u soo kordhay gobolka saaxil iyo guud ahaan qaranka Jamhuuriyadda Soomaaliland heshiisyada caalamiga ee madaxweynaha Madrid buu haystaa waxaan aad iyo aad u hambalyeynaa baarlamaankaas iyo guurtida maanta xilka iska saaray arrinkaas maanta inay ansixiyaan waxa aanu halka kan cod midaysan ku taageeraynaa arrinta meelmarinta saldhigga ciidanka Imaaraadka ee Berbera run ahaantii oo aanu u aragno inuu yahay waxtar aad u qiimo badan oo Jamhuuriyadda Soomaaliland u soo kordhay haddaan biskan military horta sharaxa Imaaraadka biskan military wuxuu ka mid yahay bisaskii hore ee Soomaaliya badda bixin jireen Berbera laga bixiyay haday noqon lahayd Ruushkii iyo haday noqon lahayd badda Mareykankii mandaqadan aynu ku noolahay maanta runtii waxa ka jira duruufo fara badan baa ka jira hadayna dawladihii waaweynaba difaac mushtari ka maarmi waayay inagoo dawlad ma garanaysa aan la aqoonsanin ahna waynu baahanahay waayo waxa ku xiran mandaqadan ma garanaysa aynu ku noolahay haday noqon lahayd Suezka kanaalka iyo haday noqon lahayd gacankan Carabta oo ay ka socdaan hawlo fara badan go'aanka saxa ay qaateen haddaan nahay gobolka saaxil waxaan soo dhaweynaynaa saldhigga military ee ciidamada Imaaraadku ay ku yimaanayaan gobolka aad iyo aad si mug leh aan u amaanaya oo hambalyeynaya u taageeraya anigoo ku hadlaya afka isku duwayaasha gobolka saaxil anoo ku hadlaya golayaasha qaranka golaha guurtida iyo golaha wakiilada sida mug iyo miisaan kale u ansixiyay maanta horumarkii uu madaxweynuhu dalkan maxay uu soo kasbaday uu keenay u aragno maanta inay tahay talaabo wax ku ool ah aynu oran karo waa ictiraaf horantii marka labaad maanta ana xageeyga maalin weyn waxa madaxweynaha qaranka Jamhuuriyadda Soomaaliland uu gartay waxa labada gol qaran ay garteen ayuu dadka reer saaxil reer Berbera ay garteen intaasina ku dhantahay ama baadi assalaamu alaykum warahmatullaahi wabarakaatuh wasiir ku-xigeenka xanaanada xoolaha iyo dhamaanba isduwayaasha gudoomiyaha degmada aad baan u hambalyeynaa maanta anaga farxad weyn bay noo tahay madaxweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliland halkan hambalyo gaar ah uga direynaa labada golaha guurtida golaha baarlamaanka aad baan uga direynaa shacbiga weynaha reer Soomaaliland waxaan leenahay hambalyo oo maanta arintan taariikhiga aynu xafladeynayna ee kumanaanka sano soo socda ku xardhanaan doonta taariikhda Soomaaliland go'aamiyay inuu maanta horgeeyo baarlamaanka waxaynu mar labaad ayagana u mahadnaqaynaa labada aqal ee baarlamaanka oo gartay go'aankaas horumarka uu leeyahay anigoo markaa ka wakiila shaqaale weynihii dekedda Berbera iyo muruqmaalkiisiba waxaanu leenahay madaxweyne aad iyo aad baad ugu mahadsan tahay talaabooyinka horumar kale ee iska soo daba dhacaya faa'iido doona dad badan baa ka shaqeyn doona waxa laga faa'iidi doona xiriirina dhex mara inaga iyo dawladda Imaaraadka ciidankeena taa kula ka heli doona oo ku dhismi doona waxaynu marka labaad madaxweynaha mahadiisa ka gadaal waxaynu mahadnaqaynaa safiirka Soomaaliland u fadhiya dawladda Imaaraadka Carabta baashe awil oo mashaariicda haylka waaweyn ninka ka shaqeeyay ee u dhabar adeegay ee soo dhaliyay talaabo wax koolana qaaday ilaa intuu maamulka dalka hayay hadii horumar noqoto iyo hadii wadamada caalamka uu xiriir ka soo jeexayba waxaan kaloo halkan hambaryo uga dirayaa golayaasha qaranka ee guurta iyo wakiilada ee markasta la garab taagan horumarka uu madaxweynuhu dalka uu la yimaado isagoo madaxweynuhuna sidii sharciga ahayd holkeena golayaasha qaranka waxaan aad ugu hambalyeynayaa heshiiskii hore ee dawladdu la gashay shirkadda DP World ay boqolkiiba 99 ku ansixiyeen
golaha labada gole oo la isku yidhaha baarlamaanka iyo kan maanta ee ay ku ansixiyeen saldhigga militariga ee berbera. Mukhtaar Cabdiraxmaan Maxamuud, telefishinka qaranka Somaliland, Berbera.